waa dhacdo naadir ah inay dhacdo taasi oo lagu arkay hooyo bukaan ah oo la keenay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir ee magaalada Muqdisho. waxaa muddo 5 sano ah caloosheeda ku jiray ilmo yar kaasi oo aan ku jirin minka loogu talagalay inay ilmuhu galaan marka ay hooyadu uurka qaado. waxa uu yaalay meel ka baxsan ilmo galeenka sida ay sheegeen takhaatiirtii baaritaanka iyo qalliinka ku samaysay. canuga ayaa muuqaal ahaan u ekaa 8 bilood jir walow ay cagihiisu u muuqdeen qof dhowr sano jira. waxa ay hooyadii dhashay sheegtay in 5 sano ay uurkiisa lahayd lana xanuunsanaysay. waa tan hooyo Muno oo ka waramaysa waxa ay ku sugneed 5 sano ee la soo dhaafay ee caloosha uu ku jiray canugan meydka ah. magaceedu Muumin Aadi Yaasiin Ali dhaha. aye unuga ay u jiri 5 sano oo inta ka timid marka qaryuuley xanuun ma dareemayso marka dhowr xanuun iyo aan dareemay 5 sano isbitaalka ku wareysay ma timid Banaadir isbitaalka Banaadir ay u horeeyay ee marka dhaqaatiirtu maxay ku sheegeen in lagu caawiyo waxa ay qabtaan aye ilmaha la soo saar misaarura dhashay marka adigu kana ay horeey kana ku horeey aye marka maxaa dareentay marka sidka aad qaaday kadib maxaa dareentay lana ay galeen mahay aye marka intaan imaaday shalay ayaa la soo gaarsiiyay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir halkaasi oo baaritaan lagu sameeyay lagu ogaaday in xaalad ka baxsan sida caadiga ah ee hooyo uu qaado ay haysato hooyo Muna ayna go'aansadeen maamulka isbitaalka iyo takhaatiirtu in qalliin lagu sameeyo. Dr. Khalid Saleeman Khalid oo ah dhakhtarkii baaritaanka sameeyay ayaa ka warbixiyay waxa uu ku arkay baaritaankii. waxaan arkay kolkii u horeysay computerka saarayba in ilmo galeenku uu maran yahay aan wax ilmo ah haba yaraatee aanu ku jirin marka waxaan daba galay ilmahani halka uu haysto iyo meesha uu ku sugan yahay uu dhakhtarka qalliinka u sameynaya si kalsooniya ugu geli karo. waxa aan aragnay si adag si badanka aad looma kala saari karo laakiin in uu intestine-ka qayb ka mid ah uu ku dhegan yahay ilmuhuna ilmo 5 sano caloosha ku dhex jiray uu ahaa. Dr. Xaashi oo ah diktoorkii qalliinka sameeyay ayaa sheegay in bukaanku ula muuqday markoodii hore qof caloosha buro uga taalo. markii aan arkay wuxuu noola muuqday bukaan leh abdominal mass maartay buro caloosha uga taalay u muuqday oo aad u adag very hard ah. kadib waxaan arkay reportkii computerka deetana waxaan u balan gareynay inaan qalliin u sameeyo sidaas darteed qalliinka ayaan bilownay. qalliinka wuxuu qaatay taqriiban maartay 1 saac iyo 10 daqiiqo camal. wuxuu ahaa canug hooyada ku jira caloosheeda almost 5 years sida ay bukaanku noo sheegay. wuxuuna ku jiray abdominal cavity-ga yani caloosha gudaheeda ayuu ku jiray. wuxuu haystay intestine-ka ama mindhicirada iyo omentum-ka. kadib waxaan soo bixinay canugii meelaha haystay wuxuu ku dheganaa canuga madaxiisa yani already ibidu way ku qalashay meesha laakiin qaybo kamid ah canuga iyo dhabarka iyo madaxiisa ayaa wuxuu ku dheganaa omentum-ka iyo qayb kamid ah mindhicirada. sidaa darteed markii laga foji tago waxaa dhacayo dhaawac waxaa ku imaanaa mindhiciradii waa ka soo bixinay dib aan ugu habeynay canuga aan soo saarnay waa arki kartaan clipka aan ka sameynay wuxuu u muuqdaa almost canugu 6 bilood ama sanad ku dhow muuqaalkiisa oo gabar ay ahayd. Fartuun Shariif oo ah agaasimaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ayaa sheegtay in kiiskan uu yahay kiis saddexaad ee soo mara. maamo Muumino oo runtii ahayd hooyo ugub ah muddo 5 sano ka hor guursatay la nooleed xaalado xanuun dareemaysay muddo 5 sano ah buro ama maxay ahayd culays xagga caloosha ah. markii ugu horeysay isbitaalka timid waxay la kulantay dhaqaatiirteena fadhiisata bukaan socodka
waxaa loo diray inay u baahan tahay ultrasound ama computer waxaa qaabilay Dr. Khalid oo ka tirsan dhaqaatiirta sida hufan noola shaqeysa isbitaalkana waqti dheer si volunteer ah ugu qudmeynaya dadkii Soomaaliyeed waxaa ilaahay mahadiis ilaahay u waafajiyay inuu diagnosis sax ka gaaro case kan oo ah dhaqaatiirta say sheegeen calcified fetus oo ah inuu ku sameysmay ilmo galeenka banaankiisa ayna tahay dunida uu dhifi qaliil ku yahay Soomaaliyana case-kii saddexaad inta ogaalkay ah aan maqalnay isbitaalka runtii wuxuu u adeega bulshada Soomaaliyeed wali kuwa daagta daran hooyooyinka Soomaaliyeed ee ka faa'iideysto aad ay u tira badan yihiin Maymuna waxay ka mid noqotay dadkii ka faa'iideystay adeegaas oo daawo lacag la'aan ah iyo computer lacag la'aan ah iyo qaliin intaba ka helay isbitaalka. Cabdiweli Axmed Qorane warbaahinta qaranka Muqdisho.